waad samayn kartaa sidoo kale waadna baran kartaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jamco wanaagsan dhammaantiin. Waxaan maanta ka hadlaynaa talooyin iyo tusaalooyin ku saabsan sidii aad u baran lahayd barnaamijyada muuqaalada lagu editin gareeyo, lagu bedelo iyo arrimo badan oo kale adigoo internetka ka baranaya arrimahaas. Xageen ka bartaa ama sidee lagu bartaa barnaamijyada muuqaalada lagu bedelo? Waa su'aalaha ugu badan ee isoo gaaro dhalinyaro badanna isweydiinayaan. Maadaama aanan lahayn Soomaali ahaan warbaahin ilbaxsan oo qalbi furan una soo gudbinin ummadda wixii faa'iido leh, waxaa yar faafinta wacyiga aqoonta iyo gaarsiinta wixii faa'iido leh. Insha Allah muuqaalkan kadib waxaan rajaynayaa qof kasta oo rabo barashada barnaamijyadan in uu heli doono waddadii uu u mari lahaa. Waxaan soo qaadanaynaa tusaalooyin dad netka ka bartay oo qaarkood weliba ku shaqaystaan farsamadii ay barteen, meel sarena ka gaaray. Marka koowaad, maxaad u baranaysaa barnaamijyada muuqaalada lagu bedelo ama video animation? Arrimo badan darteed ayaad u baranaysaa, sida haddii aad leedahay kanaal YouTube, waxaad u baahan tahay in muuqaalka aad kaamaradaada ku duubtay ama samaynta muuqaal cusub adigoo sawiro, muuqaallo iyo qoraal isu geynayo si ay ugu dambayn u noqdaan video taya leh oo dadku ay daawan karaan. Haddaba si aad uga reebto wixii qaldan, wixii aadan rabin, waxaad u baahan tahay wax aad ku kala jarto. Arrinku wuxuu la mid yahay adigoo wan kuu qalan yahay oo kale martina kuu fadhido, wax midiyahana aanan haysanin ama lagaa qaaday. Haddaba macquul ma ahan inaad marti siiso saxan harag iyo geeso ku jiraan wax aad isku soo duubtay. Midiyaha aad hilibka haragga iyo waxa aadan rabin uga reebayso waxay u dhigmaan barnaamijyada wax lagu bedelo. Neefka kuu qalanna muuqaalka kuu diyaarsan ee aad duubtay. Inta badan waxaa kanaalada kuwa TV-yada caadiga, kuwa YouTube-ka aad ku arkaysaa wax lagu magacaabo qaladaadka, oo ah muuqaalka sida uu ahaa ka hor inta aanan editinka lagu samaynin ama la bedelin ama laga reebin wixii qaldan. Tusaalehaan u soo qaadana muuqaalkan Islaam Cumar oo YouTube-ka kanaal ku leh, wuxuu soo geliyaa xilliyada qaar qaladaadka muuqaalka sida uu ahaa inta uunan editin garaynin ka hor. Waxaad arkaysaa in uu yahay muuqaal qaladaad badan oo aanan la daawan karin. 1 2 3 gacanta dhaawaciyaa ku yaala. Uu soo qaatay kan kii oo jugsiyey ayuu haddana jugsiyey. Iska wareer waay. 7 sano kadib 1992 ama 1902 iyo ama waan wareersiin hal lambar ku taagnaaw. 1900 ma ahan 1500 ma ahan. Waxaad kalood u baranaysaa barnaamijyadan in ay kuu noqoto xirfad aad ku shaqaysato, sababtoo ah dadku inta badan ma yaqaanaan, waana wax maanta suuqa shaqooyinka looga baahan yahay. Waxaa laga yaabaa inaad meel ku aragto, waxaan u baahanay qof yaqaano barnaamijka After Effects, barnaamijka Adobe Premiere, qof si fiican u yaqaano Photoshop oo loogooyin iyo aqoonsi sameeyo. Waxaa jira shirkado sameeya filimaan documentary ah kadibna ka sii iibiya kanaallo waaweyn. Haddii ayna aqoonin qaabka muuqaalada loo jarjaro loona bedelo, uma suurtageli lahayn iibinta waxa ay sameeyeen. Walaalayaal, waxaan ku jirnaa casriga internetka oo in waxa aad rabto aad barato kaa xigta keliya kilig in aad muuska ku siiso shaashadda. Waxaan ku jirnaa xilli macrifadu meel kasta taallo. Waayadii hore dadku kumannaan kilomitir ayay jari jireen si ay hal xadiid ama hal kelmad u helaan. Maantana kumannaan kutub ayaad helaysaa ilbiriqsi gudaheed. Waxaa jira dad badan oo internetka sida YouTube-ka ka bartay luuqado kala duwan, borograamyo kala duwan. Waan sheegi doonaa meelaha aad ka baranayso. Aan soo qaadana tusaalooyin rag netka ka bartay sida muuqaalada loo bedelo, video animationka loo barto. Waxaana ka mid ah nasiib wanaag wiil Soomaaliyeed, saaxiibkan Salmaan Maadow, oo xilliyada qaar sameeyo cartoon af Soomaaliya. Tusaale, Muhammad Zaqzuuq waa video animator Masri ah ama wiil meel sare ka gaaray sida loola tacaamulo muuqaalada loona sameeyo wax kasta oo la xiriiro. Wuxuu leeyahay hadda website uu koorsooyin lacag ah ku bixiyo. Sida uu sheegay, dhammaan waxa uu yaqaano internetka ayuu ka bartay. Sida uu sheegay, wuxuu yiri, waxaan isweydiin jiray markaan arko waxa barnaamijka After Effects-ga lagu sameeyay sida hordhacda, introyada, sidee u sameeyeen waxaan?
ma laga yaabaa in maalin aan sameeyo waxaan oo kale laakiin heer wuxuu gaaray uu tv-ya waaweyn u sameeyo muuqaallo iyo hordhac wuxuu sheegay in wasaaradda waxbarashada sacuudiga uu u sameeyey videograf ama sharax wax muujinayo wuxuu kaloo hordhac u sameeyey tv-ga yemen bangiga dhexe ee masar dhammaan netka ayuu ka bartay weliba xilligii uu bartay youtube-ka kuma jirin muuqaallo fiican oo sharaxayo 2007 ilaa 2008 ayay ahayd qiyaastii meelahaas tusaalaha kale waa walaalkeen salmaan maadow oo aniga shakhsi ahaan wax badan iga saaciday igana kaalmeeyey hordhacan hadda aan daawan doonno wax yar kadib asaga ayaa iigu sameeyey barnaamijka after effect inta aanan u sii gudbin qisada salmaan aan wada daawanna muuqaalkan kooban oo uu noogu sharxayo qaabka aad wax isu bari karto waan isu soo laaban doonaa waxaan jeclahay inaan uga hadlo videogaani gaaban sida wanaagsan ugu faa'iideysan karto internetka oo ku jira teknoolojiyada midka ugu muhiimsan casrigaani ku noolnahay oo ka maarmin qofka bini'aadamka gaar ahaan dhalinyarada arrimo badan oo ku saabsan nolosha ayaa loo adeegsadaa inkastoo ay dhalinyarada badankooda sida wanaagsan ugu faa'iideysan internetka iyagoo waqtiga un iskaga lumiya waxaanan u faa'iido lahayn mustaqbal iyo diinba halkan waxaan kugu soo gudbinayaa sida wanaagsan internetka cilmi fara badan ugu baran karto adigoo gurigaada jooga adigoo gurigaada jooga qolkaada ku jira ayaa cilmi badan ka baran kartaa iyadoo hadda internetka aad ka heli karto wax walba oo cilmi ah u baahato adigoo heli kara koorsaad iyo buugaag ay leeyihiin jaamacadaha horumarsan ee dunida si lacag la'aan ah qof walba wax uu isbari karaa kaliya qofkaas wuxuu baranayo waa inuu isjeclaysiyaa waxa uu rabo markaasi inuu barto maskaxdiisana ku seefgareeya inuusan jirin adduunyadani wax adag halkan waxaan kugu sheegayaa talaabooyin hadda raacdo insha Allah si wanaagsan kaliya wax isku bari karto marka hore waa inuu qorshe ku degsanaada waxa rabto inaad baratid iyo naftaada waa inaad weydiisaa sababta aad u baranaysid waxaasi hadda u hesho jawaab talaabada koowaad waa u gudbi kartaa midda labaad raadi macluumaadka u baahan tahay inaad baratid haddaysan kugu filnayn raadi wax badan kadib waxaa hesho kutubo iyo video iyo wax walba khuseeya mowduucaasi aad markaasi raadinaysid hal meel iskugu geesi haddii ay kugu fududaato inaad u soo laabato hadda maadaama aad heshay macluumaad kugu filan bilow inaad wax isbarto aad akhrisato ama aad daawato wixii aad soo aruursatay haddaad rabto inaad baratid programming ama xisaab ama physics ama computer ama waxyaabaha kale ee kaaga baahan tadbiiqa ee ku celceli keliya yuusan noqon waxaade inaad wax akhrisato ama wax daawato keliya barnaamij walba aad rabtid inaad barato waqti badan si wax walba intaa waqti aad siisid ayaa xariif ku noqon marka juhdi badan iyo waqti badan si waxaasi saa wax badan u faa'iido maalinna ay ka tageen waxaasi aad baranaysid adigoo wax yar aadan akhrin ama aad tadbiiqin casharka shalay barat ha ka tagin ee ku celi oo muraajace kadibna u gudub casharka cusub ee maanta ugu dambeyn waxaan kula dardaarmayaa saddexdan waxyaabood inaad la imaatid marka koowaad waa Allah inaad ku xirnaato quraanka Allah wuxuu ku dhahay wattaqullah ويعلمكم الله wuxuu dhahay Qurtubi Allah u naxariistay asigoo fasirayo aayadan waa badan oo Allah sareeyay qaaday qofkii ka dhowrsada inuu wax barayo macnaha qalbigiisa inuu gelinayo nuur uu ku fahmayo wax walba loo sheego sabarna inaad la imaato iska ilaali degdegta tartiib u soco si hadhow aad u caajiseen hana bilaabin darsi cusub adigoo dhameen darsigii hore hana bilaabin koorso cusub adigoo aadan dhameenin koorsadii hore midda kale waa muhiim waqtiga inuu ku nidaamsanaado iska ilaali isdhexyaacida soo dhawaada mar kale salmaan barashada barnaamijyadan wuxuu bilaabay 2009kii waqtigaas sidoo kale youtube-ka muuqaallo fiican kuma jirin internetkan siduu hadda u horumarsan yahay uma horumarsanayn wuxuu u bartay in uu jecel yahay hiwaayad ahaan si hiwaayad ah ayuu u bartay waxaad ogaataa in aad baran karto wixii aad jeceshahay kana gudbi karto caqabad kasta oo ku soo wajahdo ama ku soo food saarto jaamacad ayuu Suudaan ka dhiganayay xilligaas meesha uu deganaana internet ma lahayn wuxuu samayn jiray hadduu aado internet cafe ama internetka magaalada ayuu ka soo dejin jiray casharo kadibna ku celcelin jiray maanta inta badan waxa aad rabto youtube-ka ayaa laga helaa salmaan heer sare ayuu ka gaaray arrimahaas wuxuuna loogooyin ama calaamad aqoonsi u sameeyaa hay-ado kala duwan iskuulo iyo jaamacado sawirkan horteena ka muuqdo qoraalada kala duwan ee ku qoran iyo calaamadaha ku yaala waxaa sameeyay walaalkan Salmaan Maadow jaamacadda Niileen Suudaan
wuxuu kaloo loogooyin ama calaamado aqoonsi u sameeyey hay-ad khayri oo waddanka gaana laga leeyahay sida hortiinna ka muuqato. 2 kanaal ayuu leeyahay Salmaan maanta, wuxuuna soo gudbiyaa koorsooyin kala duwan. hoos ayaad ka helaysaan linkiga kanaaladiisa commentiga ugu horeeya ama descriptionka sanduuqa tilmaamaha. barnaamijyada muuqaalada lagu bedelo way badan yihiin. halkan waxaan kugu soo gudbinayaa kuwa ugu caansan oo casharo lagu sharxaya aad internetka ka helayso, gaar ahaan YouTube-ka. waxaana ka mid ah dhammaan barnaamijyada shirkadda Adobe oo caalamka oo dhan laga yaqaano tayadeeda iyo professionalnimadeeda. barnaamijka Adobe Premiere Pro waxaa lagu tiriyaa barnaamijyada ugu tayada wanaagsan ee lagu bedelo muuqaal, kala jaridda, isugeynta iyo wixii soo raaco. sidoo kale After Effects oo lagu magacaabo barnaamij wax dhaqaajiyo ama lagu sameeyo animation, kumanaan casharo lagu sharxayo sidoo kale ayaad ka helaysaa YouTube-ka. Adobe Photoshop waa barnaamij sawirada, loogooyinka lagu sameeyo. haddii aad ku shaqaynaysa barnaamijyadii hadda aan soo sheegnay, kama maarantid barashada Photoshop. sidoo kale barnaamijka Vegas Pro ama Sony Vegas oo ah midka aan hadda muuqaalkan ku bedelay isuguna geeyey, oo ah barnaamij aad wax badan ku qaban karto, aadna u sahlan oo aanan dhib badnayn. aniga waxaan ku bartay muddo kooban dhowr cashir oo aan YouTube-ka ka daawaday. sidoo kale barnaamijka Final Cut oo aan qiyaasaya inuu ku shaqeeyo keliya kombiyuutarada shirkadda Apple, laakiin waa barnaamij tayo sare leh oo professional ah. waxaa jira barnaamijyo aad ku sii bilaabi karto oo aanan professional ahayn sida Power Director, Filmora, Camtasia Studio iyo kumanaan barnaamij oo soo raaco. ugu dambayn, xageen ka baran karaa haddaba barnaamijyadan? sidaan soo sheegnay, YouTube-ka waxaa laga helaa kumanaan casharo lagu sharxayo barnaamijyadaas kala duwan ee aan soo sheegnay. haddiiba aad ku fikiraysa barashada barnaamijyadan, waxay ka dhigan tahay in aad fikrad guud ka haysato waxay yihiin, jeceshahayna arrinkan, qaabka wax loo baarana taqaano. laakiin haddii aadan fikrad guud ka haysanin, waxaan kugula talin lahaa inaad soo baarto macluumaad badanna aad ka soo qaadato. waxaadna ogaataa inayna qasab ahayn inaad barato keliya video animationka ama video editingka. waxaa jira waxyaabo kalood internetka ka baran karto, xisaabta, luuqado kala duwan. ma ahan keliya video animation ama video editing inaad barato, laakiin muuqaalkan wuxuu ku socdaa inta rabta inay bartaan mawduucan aan hadda ka hadlayno. waxaa jira website si akaademi sarrayso kuu baraayo, ay sharaxayaan ama wax ku soo gudbiyaan dad cilmi dheer u leh waxa ay soo gudbinayaan. waana webka uu walaalkan Salmaan ee aan ka soo hadalnay wax badan ka bartay. waana webka lynda.com. waxaa ku jiro barashada wax kasta oo niyaddaada ku soo dhaco oo la xiriira kombiyuutarka, waana lacag hawlwelin. waxaa jirto qaabab kala duwan oo lagu helo oo aad u fudud, weliba casharada webkan si bilaash oo free ah. in aad akoonti ka samaysato, tallaabooyin yaryarna aad raacdo, 2 muuqaal, midna carabi yahay midna ingiliish yahay, oo sharaxayo qaabka aad ku heli lahayd si lacag la'aan casharada webkaas ayaan hoos kuu soo dhigi doonaa descriptionka iyo weliba commentiga ugu horeeyo. sidoo kale waxaa jira webka aadka caanka u ah caalamigana ah, laakiin inta badan lagu barto xisaabaadka, fiisigiska iyo wixii la xiriira, waana Khan Academy oo ah website free ah. kumanaan maadan aad ka baran karto sida programinta, xisaabaadka, fiisigiska, chemistryga, video animationka. haddii aad furto, waxaad dooran kartaa barashada wixii aad rabto inaad barato. sidaan soo sheegnay, inta badan casharadaas YouTube-ka ayaad ka heli kartaa. waxaana jira kumanaan website, kumanaan web laga baran karo barnaamijyadan aan soo sheegnay. haddaad baarto, baaritaankaada aad samayso, waxaan huba inaad heli doonto kuwa ka sii fiican kuwa hadda aan soo sheegay. intaas ayaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiya maanta. waxaan rajaynayaa qof kasta in uu dadaal muujiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.